maanta waxaan sameynaynaa isbarbardhig kiisii ugu saameynta badnaa ee abad la sameeyo. wuxuu u dhexeeyaa Fahad Yaasiin iyo Farmaajo. Fahad Yaasiin miyaa la waday mise Farmaajo la waday? sida aad la socotaan Daily Media hadda ka hor 2020 iyo 2 inay eedan jeclahay waraysi la yeeshay wandii kaliya waxaa daawatay 1 milyan. sida halkan ay kaga muuqatana sawirka hadda u jeedaan Cabdijaliil Show wuxuu soo bandhigi rabaa berri oo Jimco ah podcast ugu saameynta badnaa Cabdullaahi Farmaajo la balansan yahay ala soo diyaar rabaa. marka Farmaajo isagana ma daawan doontaa one day 1 milyan ama 2 milyan ma daawan doontaa isleedahay qiyaasta iska qiyaasmayna sababtoo ah labada nin qofka saameynta leh waa la ogyahay laakiin saas ay tahay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo yaa media saameyn ku leh su'aasha ugu horeysa jawaabta u baahan waa taas. marka sidoo kale waxaad la socotaa in Fahad iyo Farmaajo ay kala tageen oo siyaasad ahaan ay u kala tageen. ninkaana Fahadna isagana uu team haybad iyo barnaamij uu wato saaxiibka Farmaajo isagana uu wato maxaa la dhahay team nabad iyo nolol. in badan 4 sano la soo dhaafay waa waraysi ugu horeeyay ama podcast ugu horeeyay Farmaajo la yeeshay Cabdijaliil Show aan la yeeshay YouTube-kiisa ka soo daawan doontaan bari markale soo daay. marka asana one day ma daawan doontaa 1 milyan su'aasha ugu horeysa isweydiinay taas waay ama waa GB caadiyo 100,000 iyo 200,000 ka badan ma daawan doonto one day saasle qiyaasta hadda iska sii qiyaas bari marka oo 1 milyan ay sii daawato qiyaasta hadda inta ku soo qortay waa soo bandhigi doona video kale ayaan ka sameyn doona insha Allah hadduu Ilaahay gaarsiiyo. marka nimankan haddii Fahad la waday iyo haddii Farmaajo la waday midka dadka u baahnaa la riixay dan weyn dadku haystay waa la arki doonaa. waraysiga berri ee Jimcaha Cabdijaliil Show uu soo deyn doono ayaa markhaati ka noqon doona insha Allah hadduu Ilaahay gaarsiiyo. adigu ra'yiga maxay kula tahay? waxaan ahay Mr. Glamtani guul iyo gabanimo. ugu dambeyn waxaa soo gabagabeeyay dagaal 48 saacadood in ka badan socday magaalada Baydhabo. ila daawa videoga. waa ku aragaytan howlkii oo wasaaradda cadaaladda ka dhex jira howlkii shirarka oo golaha wasiirada iyo tiimkii markay kooyaan la kashiray waa ku sib aragaytan intu waa ku ilbaabkii la ku galaayo kuraasooyi waa ku bustiyo qashaq waantii almay buuhan raasu aragaytan marka jeeka meele way ka dhamaaday way ka leeday ma aragaytan waa howlkii shirarkii intana waa buqlay buuhan weytinkii oo dadkii wasiirkan kooyo mase shaqo fadaya meelaha fadheedayaan sida aad la socotaan magaalada Baydhabo labadii bari oo la soo dhaafay dagaal aad u xoogan ayaa ka socday. ciidan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidan taabacsan wasiirka dowladda federaalka ee wasiir Eelay ayaa isku farasaaray. ugu dambeyntii hadda waxaa la wareegay gurigiisii ee isaga uu ka talin jiray ama isaga dadka uu ku qaabili jiray ee Koonfur Galbeed ku yaalay. maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in ay soo gabagabeeyeen dagaalkii u dhaxeeyay isaga iyo kuwa ka soo horjeeda wasiir Eelay taageersan waxayna sheegeen gurigii iyo wixii yaalan in ay la wareegeen. haweenka ama wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in ay isku dayeen ragga taageersan wasiir Eelay in ay dadka dhacaan suuqa xoolahana ay weeraraan dad meesha joogeen ay hubkooda qaataan. hase yeeshee warkaas ma xaqiijin karno isaga ayaa afkiisa ku sheegtay. ayaantaanba Koonfur Galbeed siyaasadda aad u karkareysay dagaalo xun way ka socdeen. dagaaladaas rag badan oo shacab ku dhaawacmay ciidan badan ku baaba'ay barakac badan ka dhacay sida TikTok iyo Facebook aad ka daawanaysaan. marka ugu dambeyntii Koonfur Galbeed way soo gabagabeysay dagaalkii u dhaxeeyay wasiir Eelay iyo maamulka Koonfur Galbeed. guuleysta waxaan ahay Mr. Glamtani oo inoo socodsiinay wararka degdega ee magaalada Baydhabo. waa ku aragaytan howlkii oo wasaaradda cadaaladda ka dhex jira howlkii shirarka oo golaha wasiirada iyo tiimkii markay kooyaan la kashiray waa ku sib aragaytan intu waa ku ilbaabkii la ku galaayo kuraasooyi waa ku bustiyo qashaq waantii almay buuhan raasu aragaytan marka jeeka meele way ka dhamaaday way ka leeday ma aragaytan waa howlkii shirarkii intana waa buqlay buuhan weytinkii oo dadkii wasiirkan kooyo mase shaqo fadaya meelaha fadheedayaan meeliyo wasaaradda cadaaladda dowladda Koonfur Galbeed aragaytan meel kastana waa walka rafaad aragaytan intana waa ku meel maqaayadii marka aragaytan meelan isnay bari iyo wali la ka garacay iyo la garacay
meelin sanade aragaytan mili banaankiyo aragaytan wali oo habada raasay yaala aragaytan marka heegin wali buaha mili oo wasaaradii oo guriga aalay waako guriga intee aragaytan oogahay wakay oogahay guriga dib yeeray damshiidan inta waako aragayta kida linkleeda meelin geeg ya safaada laka mari marka aragaytan waako kurasi